xildhibaanadii ugu badnaa ee ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana ka soo horjeeda madaxweynaha waqtigiisa kasii dhamaanayo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn waxay u taageereen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kadib magacaawistii uu sameeyay guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed. Xildhibaanada taageerada muujiyay waxaa ka mid ah gudoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo uu qoraal soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu bogaadiyay guddiga doorashooyinka ee maamulka Koonfur Galbeed isaga oo uu tilmaamay talaabo sharciyeysan oo muhiim u ah xoojinta dowladnimada iyo hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadeed. Sidoo kale xildhibaan Isaaq Maxamuud Mursal ayaa hambalyo u diray xubnaha cusub ee guddiga. Xildhibaan Maxamed Aadan Maxamed uu isna amaanay isaga oo xusay in ay muhiim tahay doorasho oo cadaalad ah isla markaana ay ku dhisan tahay rabitaanka shacabka ee Koonfur Galbeed. Sidoo kale xildhibaano kale oo ka soo jeeda Puntland iyo Jubbaland iyo kuwa kale ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay guddiga cusub ee uu magacaabay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. xildhibaanadan taageeray guddiga uu ku dhawaaqay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa dhammaantood waxa ay ka soo horjeedaan madaxweynaha waqtigiisa kasii dhamaanayo Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo ku dhaliilay qaabka ay dowladda federaalka Soomaaliya ay u wado arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka. Talaabadan ayaa waxay ku soo aaday kadib markii uu magacaabay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen guddi ka kooban 9 xubnood waxaana gudoomiye looga dhigay Shucayb Nuur Xuseen. Guddigan ayaa loo xil saaray qabashada doorashada golaha wakiilada iyo tan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Doorashadan uu qabanayo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa la rumaysan yahay inay gaabin karto rajadii laga qabay qabashada doorashada tooska ah. Dowladda federaalka Soomaaliya ay damacsan tahay iyada oo xilligan ay wadaan abaabulo siyaasadeed iyo mid ciidan oo ka dhan ah maamulka Koonfur Galbeed. Arrintan ayaa waxay sii hurin kartaa xiisadda u dhaxeysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed iyada oo sidoo kale ay jiraan abaabulo ay wadaan maleeshiyad la magac baxay badbaadada Koonfur Galbeed ay ka soo horjeedaan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.